أحمد محمد جامع وأقاسمها واحدة dadka baahiyaha gaarka qaba ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug waxa uu shir jiraayad ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa uuna ka warbixiyay sida xafiiska agaasimaha uu ka yahay uu shaqeeyo iyo waxyaabaha ay higsanayaan waxa uuna sheegay in ay qorsheynayaan sidii dadka baahiyaha gaarka ah qaba loo caawin lahaa isla markaana goobo ay wax ku bartaan loo sameyn lahaa iyadoona ay la kaashanayaan bulshada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug qasadka shirkan jaraa'id u qabtay waxa weeye dhawaan waxa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ay idmatay inaan ugu adeego dadka xafiiska waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba durba waxaan bilownay xog ururin iyo inaan xog ka raadino degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug waxyaabo badan ayaa noo soo baxay waxaan isku dayaynaa oo aan bilaabaynaa qorshayaal iyo system aan ku doonayno in lagu horumariyo waxbarashada dadkaasi oo ay ka mid yihiin inay helaan dadkaasi iskuulaad ay iyaga leeyihiin oo ay wax ku baran karaan dadka baahiyaha gaarka qaba sidoo kale ay qayb ka noqdaan dadka xirfadleyda ah oo ay yeeshaan dad xirfad leh laga helo maadaama caalamka ay waxa weeye iyaguna sidoo kale ay leeyihiin wadamada caalamka oo kale iskuulaadkooda waxa ku taala qayb mahani la yiraahdo ku taalo marka qaybahaasi iyo qaybo kale oo yacna iskuulaad ay ka mid yihiin sidoo kale waxaan rabnaa barnaamijyo inaan sameyno lagu dhisayo moralkooda dadkaasi aqoontooda iyo xirfadooda karaamkooda lagu kobcinayo garaadkooda ayaan rabnaa arrimahaasi oo idil marka waxay muhiim u yihiin in la helo garab istaag marka haddii aan garab istaag laga helin bulshada hay-adaha samafalka iyo cid waliba oo gacan ka geysan karta howlaha noocan aan soo xusnay waxaan marka isleeyahay hawshu ma soconayso. dhinaca kale Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ugu baaqay hay'adaha caawiya dadka baahiyaha gaarka qaba in ay ka taakulayaan sidii dadka loo bari lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin isla markaana loo caawin lahaa waxa uuna sidoo kale waalidiinta ku booriyay in ay caruurta baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan kuwa naafada ah ay bulshada ku soo dabaalaan si wax loo baro isla markaana dadka ay uga mid noqdaan maadaama uu aaminsan yahay in ay wax karaan isaguna uu ka mid yahay isla markaana waxbarashada heer sare ee jaamacadeed uu ka gaaray hay'adaha samafalka iyo cid waliba oo gacan ka geysan karta qorshayaashaasi inay gacan ka geystaan dowladda federaalka ah iyo bulshada reer Galmudug bulshada Soomaaliyeed mutadawiciinta Soomaaliyeed iyo cid waliba oo ay suurtagal tahay inay gacan ka geystaan arrimahan aan codsanaynaa inay gacan ka geystaan oo ay naga gacan siiyaan inaga waxaan diyaar u nahay inaan sameyno qorshayaashii dadkaas wajiga koobaad oo kale hadda Dhuusamareeb caasimadda Galmudug waxaan ugu talagalnay inaan ka furno iskuul ay leeyihiin dadka aragala maamulka iyo dadka deegaanku waxay noo ballan qaadeen in dhulkii nala raadin doonaan weli gacan kuma hayno dhulkaas wuxuu u baahnaan doonaa dhisme iskuulkaas wuxuu u baahnaan doonaa qarashaad marka waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baan codsanaynaa in nala ka gacan siiyo arrintaas tan kale saddexaad waxaan rabaa inaan baaq u diro waalidiinta dhalay caruurtaasi oo laga yaabo waalid inuu dhalay 6 caruur ah
hal ka midihii uu naafo yahay ama lug naafo ka ahaado ama dhagax naafo ka ahaado ama aragga naafo ka ahaado, intii kale wax alla wixii ay rabeen inay heli karaan ayaa laga yaabaa oo ay u suurtagelayso inay wax kasta u qabtaan. laakiin qofkii naafada ahaa iyadoon la kala jeclayn ilmihii haddana aad moodo in si loo bahdilayo. waxyaabahan aragno aan aadka ula yaabanahay waxaa ka mid ah nin xilligii waxbarashada qof gaaray oo waxa weeye xarig inta loo talaalay, xariggii musqushi loogu xiray, la yiri guriga ha soo dhaafin meesha, yacna xariggaas musqusha ku taga sariirtana ku yimaada. inaaf uqdad nafsi dhulka ila go'ayo ku leeyahay. xitaa masaajidda u dhow ma la geynayo, dugsi quraanna u dhow ma la geynayo. marka waalidiinta waxaan ka codsanaynaa in ay nala soo xiriiriyaan dadka noocaasi ah si aan ugu yaraan ugu tababarno in ay nafsadooda ku kalsoonaadaan oo ay wax qabsadaan ayaga, si aan ugu tababarno ugu yaraan. marka aad u mahadsantihiin bahda warbaahinta, waana idinkaga mahadcelinaya dadaalada quruxda badan ee aad wado. Dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay yihiin kuwo aad u fara badan isla markaana u baahan caawimaad gooni ah, waana mid keentay in wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ay u sameyso xafiis u gaar ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba, isla markaana Axmed looga dhigay agaasime. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuuso Mareeb.